waran arrintii shalayto buula xagar oo aad isla socoteen ninka MD-ga ee biyaha maxaa idin suurtagalay maxaad ka wada hadasheen bismillah assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh magacaygu waa xildhibaan Cabdirasaaq Ismaaciil xukuumadda dheer oo laga soo doortay degmada Galbeed Garissa Township Constituency aad baa u mahadsantahay in muddo waxaa dib aad ugu weyn ka jirtay xagga biyo la'aanta ugu weyn tahay wardkayga Galbeed sida awgeed ayaa cabasho ka soo yeertay xaafadda Buula Xagar oo aad ummadda uga oomanayn waxaan iskugu yeeray markaa ummaddii oo ayaga aan dhahnay bal shir aan qabano aan la hadlay managing director-ga Gawasco iyo technical teamkiisa oo la socdo engineerska iyo nimankii ku shaqo lahayn distributionka iyo ragga dhan wuxuu noo warramay MD-ga in cilad ay ka jirtay xagga pipingka maxaa yeelay wuxuu noo explain garay situationka sidee tahay biyaha waxaa laga soo qaadaa webiga pipeyaha ka soo baxaan horaan Spencom magaalada markay biyo gelinayaan kooga ugu horeysay magaalada waa yareen oo expansionkan hadda xaafadahan hadda la wada degay ma jiro runtii magaaladana way weynaatay biyihiina ummadii waa la gaarsiin waayay sidaa awgeed Gawasco hadda waxay isku dayahayaan pipeyaashii horaan meelihii 4 inch ka hayaan inay bedelaan ee 6 inch ka dhigaan especially hadda xaafadayda Buula Xagar iyo area-gaasayto line-kan Liboy line ay yiraahdaan ayaa biyo waraabiya line-kaasna 4 inch ayuu horan ahaa sidii uu noo sheegay MD-ga hadda waxaa laga dhigay 6 inch pumpka biyaha qaraacayana horaan halkii saacad wuxuu qaraacay 30,000 cubic meters ayuu saacadda qaraacay laakiin hadda waxay u design gareen oo pump cusubna ay keeneen in 100,000 cubic meters uu saacadda u qaraacayo marka midaasaytana waxaan leenahay Gawasco aad bay ugu mahadsan yihiin iyo county government-ka waxaa kaloo ogaataa in si arrimaha biyaha aad looga shaqeeyo ama ummadda biyo loo waraabiyo countiga isku dayeen in 3 bohol laga dhiso ADC oo xaafadaha ADC kaliya loogu talagelay laakiin culayska midan Spencom ama biyaha webiga currently hadda la isticmaalayo la yareeyo oo boholka ay saaf gareeyaan xaafadaha kore ADC Highland Buula Madina Buula Gesto iyo xaafadaha soo idil Dhoobale waxa kaloo ayadana jirtaa through the support of the county government iyo nimanka Northern Water ADP program la yiraahdo tanks laga dhisayo waxaa hadda mid insha Allah goordhow laga dhiso doona Quba hadduu la yiraahdo waxaa kaloo ayadana tank ku yaala xagga kor xarada military-ga ama xaafadahan Buulamaka opposite-keeda tanki ku yaalo marka tangigaas ayaa lagu connect gareyn sidaa bacda haddana pipeyaal lagu soo sidaayo ay xaafadaha burburiska Kefri ilaa iyo Buula Dhagax ay sidaa iyada ay biyo ku helaan marka in short waxaan u maleynayay intii aan ka hadlayn intaas ahayd waxaan aad ugu mahadcelinayaa Gawasco waxaana ka codsanayaa ummadayda reer Galbeed in ay dulqaad aad u muujiyaan waan ogahay dhibaatada ugu weyn oo wadkayga haysata waa biyaha laakiin waxaan u sheegaa inaan u maqanahay countigan ay aad u dadaalhayso arrinta iyada ay habeen iyo maalin ay ka saaxanaynin wasiirka waqti walba aan wada xiriirno ay priority-gooda ugu horeysa ay tahay in ummadda biyo ay siiyaan Galbeed Iftiin iyo Waaberi waxaan u maleynay ugu weyn magaalada Garissa inta dhibka biyaha uu ka jiro laakiin waxaan hadda aniga aan ku qanacsanahay shaqada ay hayaan Gawasco maxaa yeelay waxay haddana siiyeen ilaa iyo weekend hadduu ilaahay nafta nagu simo isniintii wixii ka dambe insha Allah hatta rationing inuu jiri doono uma maleynay marka insha Allah ummadda waxaan leeyahay inta samra intii hore oo aad soo rafaadsaneedeen waxaan leenahay raali hada insha Allah hadda wixii kadib dhibka biyaha waa laga bixi doonaa Gawasco-na aad baa u mahadsantihiin county government-kana aad bay u mahadsan yihiin uu hogaaminayo His Excellency Governor Ali Bino iyo wasiirka CEC Ciise Oyo insha Allah waxaan u maleynay intaas ku soo koobnaa